waxaan halkan ku wada fadhinaa aniga iyo saaxiibkay senator cabdirasaaq juurile cabdirasaaq cismaan marka waxaan rabnay inaanu meedida aan ugu yeeray la wadaagno inaanu waxyaala socda aan wax ka nidhaahno waxaan badnay baan ka oranayna marka u horeeya sidaan ka wada warhayno shir baa ka socda magaalada muqdisho maanta waxaa la igu nasiin 2 maalmoodna waa la shiray oo labadii maamul oo Puntland iyo Jubbaland awal banaanka joogana ay ku biireen beesha caalamka aad u danaynayso Soomaaliya oo dhan sugayso waxaan u rajaynaynaa inuu guul noqdo waxaan helaynay warka hordhaca wuxuu ahaa shalay in jawi intoona ka bedelnaa bari haddii la soo rajaynaa inuu ka bedelaado insha Allah ninna eedayn mayno laakiin waxaan ka hadlaynaa mawduuca labadayada waxaan ka tirsanahay senataradii aqalka sare oo Puntland ka galay hadda xilligii waa dhacay wuxuu dhacay waqtigayagii 2022 December anaga iyo baarlamaanka golaha shacabka maamulka executive-kaana wuxuu dhacay madaxweynuhu ka mid yahay wuxuu dhacay 8 February cid maanta xil ku fadhida horta marka u horeysa oo ku dhaadan kadha oo oran kadha anuu kaasaan ah waxaa ka jira 5 maamul goboleed baa ka jira inta kale waa qaraar sharci maaha la ansixiyey waan dastuuri ahayn dastuur maaha waa qaraar hadduu dastuuri yahay buu ahaan lahaa waa qaraarkaas waxaa leeyahay si awsan u dhicin af ingiriis waxa laga gaab ama firaaq af carabiga lagu yiraahdo ama meel maran hadhoon ku soo dhicin inta doorasho la gelaayo iyadoo markaa la filaayay in doorashadu ay ku dhacayso waqtigeedii xafiisyada nin walba sii joog meeshu joogay laakiin kuma qorra inaanu exercise garayno shaqadan awal lahaan jirin anagu ma gudbin karo sharci aqalka golaha shacabka ma gudbin karo anagu ma gudbin wada baarlamaanna isku baarlamaan baan nahayo midkii wax gudbiya kan kale weynu geeyay haddii kale sharci ma noqdeen anagu aan dhacanayna waxba ma gudbin karno 2-0 haddii la isku daro maxay noqonayaan waa 0 soo ma ha kursi kululeeyana anu halkan kursi kululeeyana soo kululeeyay haddii doorashadan dambe aan la gaaro aan soo galo markaa xilbaan noqonayna haddii aan tartanno haddii aan iska dayno ama aan muxuuhaade la doortona haddii markaas aan noqonayna qolada isagu tigfana waa la waxay iyagana ku baabeen magaceedii meesha la yiraahdo 8 February marka waxaan rajaynaynaa xafiisyadii waa la joogaa waxa kaliya executive ah waa 5 state 5 state waa laga warhayaa 3 waa nimanka aan oran karo waxay ku sifaysan yihiin mahmaadii Ismaaciil Yuusuf Kennedy oo leegada ahaa oo shaqaalaha dawladda oo leegada ah ayaan imaan jirin naadiga oo ay ka qayb gali jirin shaqada xisbiga nin mushaara ee haynaya waa miskiin dhawahe mudeec waxa ka dhigay waa inuu maarmi waayahay nimankaas waa niman dhulkoodana inta badan la haysto magaalada ku hareeraysan waardiin laga hayo dakhliga aan heli karin anu cudaar baan u hayaa laakiin cudaar uma hayo in ay guddoonshaan awood ama cid ku raacaan federaal diida federaal bay meesha ku joogaan nidaam federaal oo dastuuriya waa ka nidaam kitaabkii dastuurka waka kaasi ku joogan meesha waxaan ka ku qorayn ma samayn karaan waxay isugu imaanayaan labada maamul oo kale oo leh nidaamka federaalka hal raaco dastuurka hal lagu dhaqmo idina wax cid kale kama bursan karo dawladdu hadii waqtigeedii dhacay ha ahaato dawladda wax fulinayn laakiin meesha ha joogan yaa la kaan bay la mid yihiin iyagana waxaan leenahay mustaqbalka dalka uu leeyahay nidaam federaal meesha ku jira dastuurkaas ajabinina labada maamul oo kan aan ka tirsannahay yakiina soo labeeyay oo Jubbaland oo hadda gobol laga goostay si sharci daan loo goostay oo aan ognahay dadkiisu in nidaamka federaalka yihiin laakiin xoog abuse looga goostay oo maamulka shaqaynaya ka goostay inta muuqata iyo kuwa aan muuqan labaduba laakiin cidaan maanta muuqan ma jirto waa la wada muuqdaaba cid baa la garanayaa hadalku moogta sarbeebtu ku fiican
qof dhabarku qarsoon yahay maanta ma jiro kulli dhabarku waa muuqda waxaan u rajaynaynaa labada maamul oo kale waxaan ku taageersannahay inay nidaamka federaalka ku taagan yihiin dastuurkaana ku soconayaan saasaan kula soconnaa wax kale kulma socon kana mid baan nahay anoo kan kaasna gacan baan ku lahay kuwa kale laftooda gacan baan ku lahay weliba kan galmudug gacan baan ku lahay waa taageeray markuu soo baxay halkaan joogo waxaa yidhi daris bay noo yihin weligeena waa dhihi jiray annagu maamullada waxaan u jecelnaha inuu soo hormaro kan galmudug kolley anugu intaan madaxda ahaa saasaan odhan jirta maanta soomaaliya waa dad dhibaato waa soo madhay magaciis waa soo madhay faraha wax badan ku taagtaagi mayno laakiin xaqiiq waxa ah labada maamul oo sharciga ku taagan oo dastuuriga ah waxaa la yidhahdaa dowladay ku xidhan yihin qolana waxaa lagu xifaalayaa carabtaan aan dariska la nahay oo communityo naga digan yihin xoolaha kala gadano businesska soomaaliya ka socdo qolana qolada dariskeeda baa lagu xifaalayaa xaggaasay yidhahdaan laakiin iyagu ma hadlaan laakiin annagaa u hadlayna marmadada lacagta iska soconaysaa ku baxayso annagu haddi garow aan ka fadhigi kari la'aanahayo markaan juuqna dhaahmano qaarnana habaarayaan qaarna magaciisa iyo yaa lacagta siiya xaggee laga keena macshuur baa loo qaadaa runta isu sheego dowladaha maalintii la doortay madaxweynaha meesha jooga anaan wax xiriira lahayn oo argixisada dhulkooda lagu tababari jiray noola ka soo diri jiray oo maalinta horeysa sabab u aaday aan garanayn oo wuxuu ka soo qaabtayna uusan baarlamaanada ka aqrinayn aniga waxba naloo sheegin ilaa hadda waa sugayna wuxuu kala soo kulmay markuu maalintu aaday maxaa Eritrea ma garanayno oo ciidamada iyada noo xiriir lahayn loo diray oo hadda ay ku maqan yihiin oo inay nool yihiin in kale inay dhan yihiin aan war loo hayn halkaa laga soo khaliifay waxa ay wadaan Soomaaliya dan uma ah qabiil la gooni dan uma ah hal example baan rabaa inaan soo saaro gobolka Gedo Jubbaland buu ka mid yahay madaxda Jubbaland hadday dhalisan yihiin maanta Axmed Madoobe laba sano dambe joogay hal sano saddex sano ma aqaan doorasho gelaya yaa fariid layna ka waayay doorashada waa loo sameeyaa madax baad ka noqon kartaa hadaa qabiil wax ku raadinaysa haddii qof loo qaato inaad keentaa laakiin maamulka yaan la burburin hana ku raacin farmaajo waa sheegay waxaa la yidhi diimi konkey baa darookiisay saaxiibkiisa koowaad baan aragnay saaxiibkiisa labaadna waa naqaanaa adduunkana waa ka dhalisan yahay labadoodana maanta waxaa loo haystaa dhibaatadii ka dhacday Tigray ciidamadii inay ka qayb qaateenna aad baa loo tusay waxna waa la sheegaa intaa u dhaafi maayo farmaajo dad baa wax ka sheega maxamed siyaad baa maxamed siyaad anuu ma maago anuu maxamed siyaad waagii isuuka ay dhamaysay oo shaqada bangiga aan ka tegaynay madaxweyne ah laakiin tabar ma lahayn aniga ninkii dabcan bangiga badbaadiya oo xubno dawladda ka mid ah u badnaayeen waxa dhacaya aan ka badbaadinaynay waana la jiro in la ruseeyo waa diidanaa markii dambe waa lagu khasbay dad dibadeed baa ku khasbay tabar ma lahayn tabarta beelada laakiin xariif buu ahaayo inaan ma jeerteen maxaa mareexaan la taarget garay buu ka shaqeeyey haddii nidaam qabaa'ila ay jabhadaha qaarkood ku soo dagaal galeen oo xamar ku soo aydeen tartiib way isaga baxay mareexaanna wuxuu noqday sandwich rooti weyn oo daarood la yidhahdo dhexda kaga jira wax gooniya oo gooni loo taargetkiisa ka jira goboladan hadda annagu aan joogno mudug mareexaanka degan iyo golatan puntland degan isku alliance ay ahaayeen nidaamka qabiil isu bedelay aduu maanta gooni ha u saarin mareexaan idinkuna ha ka yeelin haddaa dadkiina mareexaan ka tihin inama mareexaan baan leeyahay anagu cadaab meel inii taallo ma hayn halkan ma taallo cadaab mareexaan meel kale Soomaaliya taallo u malayn yaan layna ku hawlgelin taasa intaasaan leeyahay qolooyinkeen annaga halkan naga tegay waxaan leeyahay waxaan dastuurka ahay qabin ha noola soo noqonin dastuurka wixii qabaa'ila kala saaraya accountable bauti maanta hadda fasax waleed caawa xafida subaxii la taga ciddii idinka diidda hadda ilaahayna waa arkaya dadkuna waa arkaya annagu waxaan rabnaa Soomaaliya inay israacdo haddii Soomaaliya cidi ka go'ayso Soomaaliya baa ka go'do wax tirsanaysa dhibaatadii ku xigtay oo weliba xamar dadkii deganaayo koonfur jigtu gaadhay anaga u badnay balasaayig meel bagaari carruurtayda ka mid noqotay dooyay la jabeen wax calaada cid u qabnaa ma jirto dib heshiisiin baan ogolla xamar baa tagnaa asxaab baan ku yeelay way istaag jasiiraan tegey waxaan ku yidhi wanaagay guriga iga burburay carruurtiina qaar baa waxay siga noqdeen bal carruur dadka iska daayay guriyahaygii qabaayilkii burburiyay waan hayaa ma bixinaysaan
qaar baa bono volunteer waxay yidhahdeen annagaa bixin annaga haddaanu nahay annagana waana annagaa soo haybsaday waa kala aqaana ciddii burburisay ya dawlad ma burburin alla hal baa guri baa nabar waxa ku dhiftay nin odayaho haddee garowga iska jooga laakiin weligii ma xusuusin marka daris baan la aha laakiin wixii dabadooda iska raacashay dadkii magaalada qabsaday ahaayeen marka waxa weeye abiil weeye hadalkaygu aniga maanta halkan dadka yaan la kala saarin oo loo kala saarin farmaajo iyo cid ka maarmi weyday iyo farxaan cid la dirirsan Soomaali ma dirirsana nabad baa ka taala waa la heshiiyey ha loo dhammaado shirka ha ka soo qayb galeen Somaliland cidda midnimadoonka ay ka soo qayb galeen ha fariisteen miiska ajendada wax ka sameeyeen ha ogolaado farmaajo ha ogolaadeen kuwan kale oo aan la hadlayo maamulada oo federation ku jiro dastuurkaas qabanayay waa fahamteen Soomaa ha ka soo qayb galeen labadaas maamul wadanka isagoo siman oo loo dhameeyo meel aan qodxay kaga jirin doorasho halaad intaas aan uga aaminsanaa wakiil bay nooga yihiin qoladaanka kale inay saa ku soo aqbalaan wixii aan ahayn intaa wakiil nooga ma aha eedana ka raaci mayso annaa ku raacsan wixii kaa gedibsan hadday sameeyaan horta halkaas aan ku sameeyey waxaan inii sheegaya marka oo wax ugu weyn taa hadda waxaan uga dhigayaa moogtahay iftitaaxe la yaabkiisa waxaa ah jimcihii anuu raadiyaashaan dhegaystaa jimcihii bisha abril 2 ahayd waxaa caado u ah idaacadaha Voice of America iyo BBC inay sameeyaan dood mawduuc intay soo qaataan jimcihii dhaweyd BBC-da qaybteeda af Soomaaliga oo laga soo tabiyo meesha la yiraahdo Nairobi isagoo garwada ka yahay barnaamijkaas nin la yiraahdo magaciisa Xasan Sheekh Umar wuxuu miiska soo dhigay dooda door ma ku leeyahay nidaamka federaalka ah oo la qaatay khilaafka siyaasadeed ee la isku mari waayay oo taagan wuxuuna u doortay laba nin xildhibaan hadday reer Puntland yahay oo khayr Allah siiyo Cabdullaahi Yuusuf Qaylo la yiraahdo oo aqoontiisa intii uu ku joogay baarlamaankan intuu ogaaday oo dhan culayska saaran nidaamka federaalka la faa'iideynka u leeyahay ka hadlay si fiican u hadlay si dastuuriga ah uga hadlay aad baan ugu ducay iyo nin isaguna xildhibaan baarlamaanka koowaad oo galmudug ka ahaan jiray oo magaciisa la yiraahdo Cabdiraxmaan Ali Ciise oo markii inta la weydiiyay wuxuu yiri waa ku leeyahay nidaamka federaalka ah ku leeyahay waa hadal negative ah wuxuu kaloo yiri aan ma si raacay sooyay nidaamka federaalka wax dhintay ah buu ka wadaa ninka focus ku saaran yahay waa laba nin waa ninka BBC-da meesha uu jooga oo magaciisa la yiraahdo Xasan Sheekh Umar iyo ninka oo mentorka u doortay oo la yiraahdo magaciisa la baxay inuu doctor u maleyn maayo Dr. Shariif Usmaan anuu shingaaniyo aan ka raadinay laakiin markaan soo helay maba ka foga aga yarka iyaga meelahan galmudug baaba la igu sheegay haday run tahay oo dadka Shariif magaciisa qaata weeye ninkaas waa ninka loo xulay intuu aqoonyahan intuu iska dhigo inuu ummadda shirka la qabanayo waa jimcihii sabtida la qabanayo nacsiyo nidaamka federaalka inuu xuniyo oo ku taageersan nidaamka mentorka annaga noogu yahay madaxweynaha Tigray Eritrea noogu yahay inaan wadankan ayaan ka dhicin nidaam federaal iyo nidaam dimuqraadiga mid ay ka noqoto dictatorship oo ka dhaco maalinka noogu yahay ninkaas nidaamkii wuxuu ku sheegay nidaam aan lagu shaqayn karin nidaam la kala soocay dadkii nidaam dibadda laga keenay oo dushana la kaga tuuray waxaan la yaabay goormuu dhashay ma joogay 1 Agoosto 2012 markii shirweynihii dastuurka laga soo shaqeeyo kabaan nagu soo dhamaadeen xamar la isugu yimi 800 ma ahayd shirweyn 824 bay ahayd Soomaaliya laga soo xulay dadweyne aftida u qaadeen aftida kooban oo dastuurka hadda yaa lagu ansixiyay oo Soomaalidu ku heshiisay oo maamulada lagu dhisay oo haddeer lagu fadhiyo meel kaga dhac eeda waxa iska leh ninkaas loo soo xulay iyo ninka ka sii horeeya oo aan dacwo ka nahay oo safaaradda Ingiriiska oo xamar fadhida ambassadorka jooga oo la yiraahdo Kate
maxaa magaceedaha gabadha Katy Foster in halkaa kayskaas dacwaan ka nahay qolada BBC-da joogta Nairobi ninkaas gaarka ah cidda barnaamijka u soo dhiibtay anagu waayadeetan halkan waxaa caado ah oo la yidhahdo qofkii wax xunoo loo qaateena aan lagu arko waxa la yidhahdaa lacag buu qaatay anagu hadda waxaan qaatay arki mayno laakiin meesha ka saari mayno qaar ka saari mayno corruptionku waa ku badan yahay dalka marka haddii hay-adihii internationalka ahaa oo dowladii dimuqraasiya laga soo gaaray dhexdoodii la geli karo oo dictatorship inay taageeraan laga samaynayo oo nidaamkii Soomaaliya lagu heshiin lahaa effortiga wasaaraya safiirkooda xamar joogo safiirka Ingiriiska uu joogo xamar oo dadka effortiga saaraya shirka lagu heshiiyo lagu furay tashwiish maalintii ka warso jimcaha hadda dacwaan ka nahay anagu arrintaas dacwaan ka nahay isaga iyaday u darantahay iyadii ka shaqeeyay safiirka uu dacwayna dawladooda uu dacwayna cidda soo dirtay ninkaas iyo isagaba ninkaas la yiraahdo xasan sheekh عثمان الشيخ حسن الشيخ عمر mid kaan hadda aqoonyahanka sheeganay waa jaahil murakaba oo indhala ama waa nin la soo iibsaday oo iiba labadaas mid yahay isagaa yaqaan ku yahay labadaas oo kala doorto waa ka baxay. Assalaamu calaykum waraxmatullahi